xanuunkan meesha ugu culus weerara waxa weeye neef mareenka ayaa ugu culus marka ha kala fuudaado ha kala cuslaadee neef mareenku marka dambe fariisiya marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye waa xanuun si fudud loo kala qaadi karo oo gaar ahaan dhacaamada jirka banaanka yaala sida candhuufta sida duufka sida ilinta sida waxyaalo meel uu ka galo jirka ama uu ka fidiyo meelahaas ba ugu fudud marka meel kastoo qof ka horeeyay oo qaba uu taabto kii kalena halis buu yahay meel kastoo qofka ku dhow uu qufici karo ama hindisi karo haddaad u dhowdahay iyadana sidaas oo kale ayuu maaragtay gaarsiin karaa marka waxa aan maanta hadalkaygu nuxurkiisu yahay maaha inaan ka sheekeeyo xanuunka ee waxa weeyaan aafada uu nagu yeelan karo annagu inay tahay mid ilaha naga badbaadiyee dhaawac culus keeni karta sababtoo ah waxaa idinkaga filan dowladihii adduunka ugu quwadda badnaa ee Yurub Maraykan China adduunkii oo dhan Iiraan adduunkii oo dhan Carab ayuu maanta dhul ka dhigay dhaqaalahoodii iyo qarannimadoodii iyo caafimaadkoodii bal waxaad qiyaastaan dal aanay haysan awood dhaqaale awood qalab awood maartay xirfadlayaal awood maartay isbitaallo iyo goobo u gaar ah oo uu ku habsado waxaan bulshada u sheegi lahaa inaanay ahayn dhib iyo kala soo wado ay tahay dantooda inaan dan gaara dowladda ugu jirin ee mas'uuliyadda ay gudato kuwa ugu waaweyn ay tahay arrin bulsho ay tahay ani dawo ma leh xanuunkani talaal ma leh xanuunkani xoog kale ma leh dowladahaas waaweyn baa iska joojin kari lahaa waxa meeshan yaala qofku ku dhaco ee uu si xun ugu dhaco wuxuu u baahan yahay ICU waa mishino sababkan oxygen ka siinaya xagee bay yaalaan dalkeena meel dhifa ayaa laga heli karaa meeshaasna dirqi bay ku socotaa awoodu ma lihin marka inaan qofku ku dhaco oo sababkiisa fariisiyo aan wax u qabano in albaabadeeda iyo daaqadaheeda xirato xanuunkani xanuun soo soconaya maaha xanuun waqti jiri kara maaha viruska oo dhan sida duriga weeye waqti kooban bay dalka haynayaan laakiin waqtiga koobnaabay arrin murugo leh kaga tegi karaan dalka waxaan xukuumadda mar labaad ku bogaadinayaa tilaabooyinka xoojiyaan ha ogaadeen canshuur yar ee dayuurad laga qaaday canshuur yar markab laga qaaday canshuur yar laga qaaday gaari jaad ama ganacsade kale wada in aanay kaabi karin dhaawaca dhaqaale ee soo socda xukuumaddu marka maanta ha qaado tilaabooyinka adag daaqadaheena aan soo xiran albaabadeena muddo yar bay waxaan u dhaafayaan muddada yar aan maaragtay isku tashano caalamkii baa kala xirmay gaadiidkii baa kala xirmay weydinka arkaya Yurub xuduudaheeda malaayiin gawaari waaweyn oo cunto wada oo wax walba wadan baa kala fariistay arintaas waxay keeni kartaa dal manihin gudaheena ka beerta nolosh oo isku filan dibaddan ku tiirsanaa inta badan marka waxa dhici kara in halkaas ganacsatadu ay ka dhax aragto in dhaqaale laga sameyn karo maanta maaha maalintii dhaqaale kordhin maanta maaha maalintii maaragtay culayska la saari la waa muddo yar oo kooban adduunku waa furmaya horeyba u soo marin xanuunadan oo kale maaha markii ugu horeysay marka waxaan kula talin lahaa inaan maciishada la kordhin in maaragtay aan laga tagin naxariis